madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhow shir gudoomiyay kulan degdeg ah oo looga hadlayay amniga caasimadda kaas oo ay ka qayb galeen taliyaasha ciidamada booliiska nabad sugidda iyo sidoo kale dhammaan maamulka gobolka Banaadir kulanka waxa kaloo goobjoog ahaa xubno kamid ah golaha wasiirada oo ay kamid yihiin wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo xubno kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu kulanka ka sheegay inaan marnaba la aqbali doonin inay dhacaan wax lamida wixii ka dhacay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho waxaana uu saraakiisha ammaanka uu faray in la adkeeyo amniga caasimadda iyo sidoo kale dhammaan dalka oo dhan isaga oo faray in la diyaar garoobo loona diyaar garoobo dagaal xoog leh oo ka dhan al-shabaab kaas oo ka bilaabanaya dalka oo dhan waxa uu sheegay inuu si gaar ah u doonayo inaanay caasimadda ka dhicin weeraro ay geystaan kooxda argagixisada ee al-shabaab saraakiisha booliiska iyo nabad sugidda ayaa sidoo kale loo sheegay in loo baahan yahay in laga hortago falalka amniga lidiga ku ah oo sidoo kale ay geystaan ciidamo ka tirsan dawladda kuwaas oo mararka qaar dila dadka shacabka ah ee caasimadda ku nool madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddooyinkii dambe waday la kulanka saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale booqashada ciidamada waxaana uu dhammaan uga dan leeyahay inuu dardar geliyo dagaalka al-shabaab maadaama uu sheegay madaxweynuhu inuu ka soo jeestay dhammaan ajandayaashii kale uu ku mashquulsanaa oo ay kamid ahaayeen dib u eegista dastuurka diin cafinta dalka in laga qaado dalka cunaqabataynta hubka iyo qodobo kale madaxweynuhu waxa la filayaa inuu maalmaha soo socdo sidoo kale uu tago furimaha dagaalka isaga oo booqan doono magaalooyin kamid ah gobolada dalka sidoo kale waxa la sheegay inuu saldhigan doono magaalada caasimadda oo ah Galmudug ee Dhuusamareeb halkaas oo mar kale ka abaabuli doono dagaalka dhana kooxda argagixisada ah al-shabaab kulanka waxa uu maanta ka dhacay xarunta taliska booliiska oo ku taala xindaabka madaxtooyada waxaana sidoo kale looga hadlay in la wacyi geliyo bulshada sidoo kalena laga qayb qaato in dadka loo jiheeyo inay ka qayb qaataan dagaalka al-shabaab dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xilal cusub u magacaabay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo sidoo kale amniga sidoo kale waxa la magacaabay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo tirdoonka qaranka oo loo magacaabay Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe kaas oo markii saddexaad qabanaya hoggaanka hay'adda nabad sugidda iyo tirdoonka qaranka laamaha ammaanka ayaa laga sugayaa inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan amarka madaxweynaha oo ah in kor loo qaado ammaanka caasimadda loona diyaar garoobo guud ahaan dagaalka dhana al-shabaab kulanka maanta wuxuu ahaa mid ay albaabada ay u xirnaayeen loogamana yeerin warbaahinta hase yeeshee waxaa jira in madaxweynuhu uu sidoo kale kulanka ka sheegay inuu dhowaan dhaqaaqi doono dhammaan howlihii kale ee uga mashquulsanaa dagaalka al-shabaabna uu ka soo jeestay dhammaantood maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen dhawaan hotelka SYL ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo si weyn ay uga caroodeen madaxda qaranka iyo dadka Soomaaliyeed maadaama hotelkaasi uu ku yilay goob si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda kuna taala xindaabka madaxtooyada weerarkaasi wixii ka dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiradda saarayay isku shaandhayn iyo dib u habeyn lagu sameeyo hay'adaha amniga waana mid keentay in la magacaabo agaasimo cusub oo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA ay yeelanayso haddaba kulanka madaxweynuhu waxa uu ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd kaliya in la dardar geliyo hay'adaha ammaanka kor loo qaado amniga caasimadda loo diyaar garoobo dagaalka al-shabaab mana jirto ilaa iyo imika faahfaahin intaasi ka badan oo ay ka bixisay filla Soomaaliya kulanka goordhow ku soo gabagaboobay taliska ciidanka booliiska Soomaaliya haddaba wixii warar iyo warbixino ay ka soo kordho kulamadaasi ka soconaya caasimadda ee looga hadlayo amniga mar walba iyo daqiiqad kasta halkan idin kula soo wadaagaya